بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم إن halka waxaan ku fadhnaa umayna beelna hadii lagu fadhiyo mudantooda waxa la duubabka marka duubabkan ka bilaab aniga duulaahi yiraahdo waxaan boqoradeena aan salaamay marka hore ugu horeeyay imaamka iyo ugaasyada garaadiyada boqorada salaadiinta kale in suldaanada in intaas kadib in waxaan aad maanta ugu faraxsanahay inaan ka soo qayb galo shirkan weyn in madaxweynayaashii hore ka soo qayb galeen ugu horeeyo madaxweynaheena Cali Mahdi Maxamed in madaxweyne Shariif Sheekh Ahmed madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ra'iisul hore Professor Cali Maxamed Geedi in madaxweynaheena Maxamed Cabdi Waare madaxweyne waxaan leeyahay waa ku faraxsanahay ka soo qayb gashid gudoomiyaha gobolka ahna duq magaalada golaha wasiirada kuwii hore iyo kuwii hadda in xildhibaanada labada aqal kuwii hore iyo kuwii hadda agaasimayaasha gudoomiye degmooyinka in haweenka dhalinyarada in si gaar waxaan u salaamayaa ciidamada amniga oo amnigana damaanad qaaday dhammaantiin waxa la baxda saxaafada in barbaarta gaashaaman waxaan ugu salaamayaa islaanka assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh in salaan kadib in shirka ka horeeyay aniga wadanka dibadiisa ku maqnaa maanta farxada ay tahay inaan ka soo qayb galo shirkan waa shir wada tashi ah beesha wixii qaldan iska saxan in hore loo socdo beeshan waa laga sheekay waxay soo qabtaan heerkay ka taagin ummadda Soomaaliyeed marka waxaan leenahay makulaal kama xaajis madax dooli marka siyaasiyiinta inta la soo keeno siyaasadda laga hadlana ma dhici karto qofku xur u yahay siyaasadiisa oo cabiri kara intaas waxaan leeyahay in dadka in noo maamulay gogosha intaas ajendaha ku daraan in waxaan amaanay bogaadin oo soo jeedinaya guddiga qabaqaabay shirkan waxaan idin leeyahay mahad hadii ka gaarto sidoo kale waxaan mahad soo jeedinaa Khaliif Cabduqaadir Macalin Nuur Siyaad iyo muasasadiisa oo halkan gogosha noogu fidiyay dhamaantiin waa mahadsantiin intaas kadib in madaxweyne Waare soo sheego waa sax waxaan aaminsanahay dadka halkan joogo oo saraha ugu dheer magaalada ay leeyihiin iyo guryaha ugu qurux badan inayna ku lahayn dagaaladan ka nimid waxaan u maleynayaa hal qof oo guri kule inteenan ma jirto marka waxaan jeclaan lahay in meelahan ka nimid oo yeeshiina ka yimaadeen ama dadkeena qaar ay degan yihiin in dib loogu noqdo in cadowga aan isku xoreyno ee shabaab dagaanadeena dib xoreen lagu sameeyo intaas kale xilwaan Cabduqaadir Cusub Lacale wuxuu sheegay waa run anaga waxaan aaminsanahay in xukuumadda hadda dhacdan aan sugeyn xilkana laga wareego markasta waxaan leenahay doorashada waa inay ku dhacdo waqtigeeda ana maalin lagu darsan cod dheer iyo cod gaaban aan ku leenahay doorashada waa muhiim waqtigeeda inay ku gaarto anaga xildhibaan soo ahay markuu ay madaxweyne baarlamaankii 8 iyo 9 iyo kan haddaba in waan jeclaan inaan ku darsano madaxweyne Sheekh Shariif uu diiday wuxuu qabtay doorasho sidoo kale madaxweyne Xasan Sheekh ma ogolaanin wuxuu qabtay doorasho madaxweynaha waxaan ka sugaynaa Maxamed Cabdullaahi Farmaajo in doorashada waqtigeeda lagu qabto iyadoo hal maalin aan lagu darin waa dhici kartaa waa dhici kartaa in si farsamo ah ama technical waqti dhowr bilood lagu daro laakiin doorasho waqtigeeda ku dhacdo intaas waxaan u leeyahay hal xildhibaanaa shir waa aragteen anna xildhibaanaa kamid ahay waxay isu sheegayeen in waqti ku darsadaan waxaan leeyahay xildhibaanaan ahay riyad ku jirtiin riyada ka kaca aniga waa jeclahay inaan 4 sano iyo 8 sano kale iska joogo laakiin waxaan jeclahay wada sharci inaan ku imaado dad badan ay sugay kursigeyga haday soo helaan waa la shaqeey doonaa daan ku soo noqdaan inaan joogaan raba laakiin muddo isaga darsanaa ma dhacayso mana dhici doonto biidnilaahi kariim in warka ma rabo inaan ku fogaado waxaan leeyahay beeshaan isku tashadaan in deegaanadan dib ugu noqono cadowga aan isku xoreyno horena aan u sii socono waa farxad iyo reen intaan isku timaado waxaan leeyahay kulumada habataan meeshaana go'aan masiirno ku soo baxal raba oo beesho dhaxalgal u noqdo
إن قرب جوكتن ومهتسين وأن جعلها هناك سوق يبقى لكن ظروف عذرك كوفيد-19 درتي سي وباقدين مركز شركة وصعودنا وحن الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قولشت